بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأبشر قارن أحمد كوحدان الشباب وحال شق بلاوي لو كن إيو سدحي توانكي شقدي أنا وحاوى فنان waxaan ka shaqeeyaa gobolka Banaadir qaybtiisa fanka iyo suugaanta ayaga waxa uu qaabilsanaa qaybta macluumaadka iyo dhanka maaliyadda sida maaliyadda إلهي أريداي لما أنتي نفتيداي أديقا لحادكي كل الله بمبيركو لدي وحدة لقي وايي أنتو أديقا هن كلها سيمي كلها سيمي أديقا هن كلها سيمي إلهي أريداي لما أنتي نفتيداي أديقا لحادكي كل الله بمبيركو لدي وحدة لقي وايي أنتو أديقا هن كلها سيمي أديقا هن اوكي wararkii ugu dambeeyay ayaan idinka daba geenayaa maadaama codkii la maqli waayay kaliya 5 daqiiqo ayaan rajeynayaa inaan ku jiro saakay waxaan soo qoray in warar la isoo gaarsiiyay ay xaqiijinayaan in fanaan la yiraahdo Abshir Gaarane oo kamid ah fanaaniinta ku dhaqan magaalada Muqdisho kuna dhashay oo la xaqiijiyay inuu magaalada ku dhashay uuna ka tirsanaa gobolada gobolka Banaadir qaybta fanka fanaankaasi waxa uu ahaa oo xoghayan uu ahaa agaasimaha fanka qaybta gobolka Banaadir waxa uu xoghayan u ahaa agaasimaha fanka qaybta gobolka Banaadir agaasimuhuna waxa ay ahayd qof haween ah oo la yiraahdo Shamso isaguna xoghayan ayuu u ahaa waxa la xaqiijiyay saakay waxaan sheegay in fanaankaasi la xiray shalay galab inay ahayd iyo xalay inay ahayd midna ma xaqiijin karo laakiin shalay in la xiray ayaan idin xaqiijiyay oo nisna aysan hay'adaha amniga aysan wali ka hadlin ayaan idin xaqiijiyay laakiin hadda wararkii ugu dambeeyay ee soo baxay waliba waqti xaadirkan just now waqti xaadirkan hay'adda nisa hay'adda nabad sugidda ee nisa ayaa soo bandhigtay muuqaalka fanaan Abshir Gaarane oo cadeynaya oo afkiis ku cadeynaya in uu ka tirsanaa kooxda xarakada al-shabaab inuu ka tirsanaa fanaan Abshir Gaarane inuu al-shabaab ka tirsanaa ayuu afkiisa ka cadeynaya muuqaalkaasi fanaanka xalay ayaa la xiray waxa laga xiray degmada Boondere howlgal aan inaba aan caadi ahayn oo hay'adda nisa ay qaadeen oo loo soo farmuuqay howlgalkaasina uu ku soo dhamaaday si successful ah oo si dhameystiran ay howlgalka ku soo dhamaaday sababtoo ah howlgalada qaar waxa dhici karta in guri qaldan darad ka dhacdo kale guri qaldan in la weeraro ama wax xog qaldan ay noqoto laakiin howlgalka hay'adda nisa loo soo sheegay waxa uu noqday mid sax ah 100% Abshir Gaarane gurigiisa oo degmada Boondere ku yaala ayaa xalay iyo shalay galab waxa ay tahay ma sheegi karo ilaa hadda ma hubo ayaa la galay waana lagala soo baxay isaga gurigiisa baaris lagu sameeyay waxa laga helay hub iyo dhowr kombiyuutarad iyo waxyaabo kale oo waxyaabo kale ayaa laga helay ayaa la yiri Abshir Gaarane hadda wuxuu ku jiraa gacanta hay'adda nisa ayuu ku jiraa sidoo kale waxa caawa la xiray agaasimaha fanka ee qaybta gobolka Banaadir Shamso caawa iyadana waa la xiray maadaama qof iyada maamulkeeda ka tirsan oo falkaasi uu shabaab ka tirsanaa marka iyadana waa la xiray laakiin Abshir Gaarane muuqaalkii uu soo bandhigay wuxuu ku sheegay in kooxda al-shabaab uu ka tirsanaa sanadkii uu ku biiray ay waxa uu ku sheegay inay ahayd 2013 fanaankaasi 13 ilaa 2020 oo waqti xaadirkan aan ku jirno ayuu ka tirsanaa wuxuu sheegay inuu u qaabilsanaa qaybta maaliyadda ayuu sheegay inuu u qaabilsanaa laakiin ma uusan faahfaahin dhanka ay tahay waa maaliyaddu way kala duwan tahay laakiin dhanka ay tahay ma uusan faahfaahin laakiin wuxuu xaqiijiyay in qaybta maaliyadda uu qaabilsanaa laakiin waa dhici kartaa qaybo kale inuu u qaabilsanaa laakiin waa isaga inta uu sheegay xog kale oo aan waliba bartayda Facebook saakay aroortii aan ku soo qoray ayaa waxa ay sheegaysay in fanaankaasi Abshir Gaarane la yiraahdo oo cadeystay inuu ka tirsanaa al-shabaab oo haddana gacanta nisa uu ku jiro fanaankaasi uu dhowr jeer la kulmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Umar Finish waxyaabaha cajiibka ah ee socda ay kamid tahay waxyaabaha cajiibka ah ee marnaba aan la rumaysan karin ay kamid tahay fanaan Soomaaliyeed oo heesihiisa laga soo daayay TV-ga qaranka dhowr jeer waliba waqti xaadirkan ay ku jiraan qaaday heesa wadani ah in al-shabaab uu ka tirsanaa 2013 ilaa waqti xaadirkan in uu la kulmo dhowr jeer oo waliba sanadkan ku jirto iyo sanadkii hore hadda dhamaaday
cumar finish oo gudoomiyaha gobolka banaadir ah iyo laga yaabo madax kale inuu la kulmay lamana ogeyn inuu al-shabaab ka tirsanaa oo cid ogeyd ma laha wax laga warqabay ma laha laakiin hay-adda nisa howlgallada ay dhowaanahanba fulinayso waxa ay noqdeen howlgallo inta badan successful ah oo howlgallo lagu guulaystay waa tii daraad guri ay jebiyeen oo ay hub culus u adeegsadeen gurigaasi oo lagala soo baxay 3 gabdhood iyo 1 wiil ayaa lagala baxay gurigaasi howlgalkaasina inkastoo howlgalkaasi guri kale ay jebi laba guri ay jebiyeen guri way ku khaldameen waxayna sheegeen in ay bixinayaan wax kasta oo gurigaasi dhismihiisa dib loogu dayactiri karo laakiin guriga kale ee saxda ahaa ee looga shakiyey in 3 gabdhood iyo 1 wiil waa lagala soo baxay gaari ayaa ku jiray isagana gaarigaas waa lagala baxay marka howlgallada nisa ay wada dhawaanahan waxaa muuqata in ay successful noqonayaan laakiin warka ugu weyn caawa ayaa waxa uu yahay warka aan saaka idin soo qoray waxa uu ahaa war aan aniga la ii soo sheegay oo xog ah laakiin in la rumaysto ay tahay hay-adda nisa oo ka hadasha waa ayna ka hadleen weliba waxay uga hadleen muuqaalka abshir gaarane ayay soo bandhigeen hadda weliba xitaa mobilka ay ugu jiraa muuqaalkaasi waan soo dhigayaa hadda pagekayga ayaan hadda soo dhigayaa markaa muuqaal ka baxo waa arki doontaan abshir weliba heesiisa ayaa ku lifaaqsan heese u qaaday iyo muuqaalkiisa ka hor wax walbaba waa arki doontaan kulay magaalada muqdisho waa u jeedaan xaaladeeda horey waxaa aragteen macalin iskuul oo iyaga ka mid noqday waxaa kasii horeeyey wariye oo iyaga kasii ka mid noqday waxaa u dhexeeyey macalinkii wariyaha waxaa u dhexeeyey xildhibaan lagu tilmaamay inuu iyaga ka tirsanaa haddaa xasuusato waa tii wasiirkii waxbarashada uu yidhi kanaa ka mid ah wuxuu yidhi kanaa ka mid uu yidhi waa al-shabaab kan sii socda uu yidhi intii daawata muuqaalkaas marka xildhibaan la arag oo la arag wariye oo la arag fannaan maxaa xiga su-aashii ugu weyn waxay tahay maxaa xiga marka kolley xaaladda jiqa ay isku tahay dad badan oo asxaabta ka mid oo facebookga kusoo qoraya hadda uu ka mid yahay saaxiibkay shardiinyo oo dhahayo muqdisho kolley bacdeed inaan ka aroorsado waxba soo qorqoraya marka kolley xaaladda heerkaas ay maraysaa warkii oo kooban waxa uu yahay abshir gaarane afkiisa ayuu ku cadaystay inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab sanadka 2013 ilaa 2020 isaga u qaabilsanaa qaybta maaliyadda waxa uuna ahaa qof ka hoos shaqeeya qaybta fanka ee gobolka banaadir ayuuna ka mid ahaa gobolka banaadirna wuxuu u haystay ID card oo ku galo uuna ku soo baxo inkastoo baaris uu marayo laakiin ID card uu ku galo uu ku soo baxo ayuu haystay gurigiisa ayaa lagala baxay shalay oo ku yaala degmada Boondere sida la sheegay hub iyo computer iyo waxyaabo kale ayaa lagula soo qabtay sidoo kalena 2 qofood ilaa 3 qofood tiro rasmi ah lama oga ayaa oo guriga la joogay ayaa la xiray iyo sidoo kale agaasimaha qaybta fanka ee gobolka banaadir shamso oo magacaas la igu soo koobay ayaa iyadana caawa xabsiga taalla wixii ku soo kordha waan la soo socodsiin doonaa waa saaxiibkay Idris Abdulqaadir Altees oo idin leh nabaadiino